daawadayaal ku soo dhawaada wararkii Warshiil TV qodobadaan idinku hayno warkeena waxa kamid ah xafladda caleemasaarka ee Axmed Madoobe oo markale dib loo dhigay dowladda federaalka oo soo saartay habraaca doorashada madaxweynaha iyo xildhibaanada Jubbaland iyo maamulka Jubbaland oo jawaab degdeg ah ka bixiyay arrintaasi Xasan Sheekh Maxamuud oo su'aal geliyay cid ay yihiin xoogagga wadaniyiinta Soomaaliyeed dowladda federaalka oo liisankii duulimaadyada ee dalka kala laabatay shirkadda diyaaradaha ee Juba Airlines daawadayaal kuwaas waa qodobadii warka ugu doorka roora haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan fadlan daawadayaal subscribe saara channelka daawada ku soo biir channelka Warshiil si aad uga mid noqoto dadka ku xiran channelka subscribe saar xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyay in markale dib loo dhigay xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe xildhibaan Jindi oo wareysi siiyay qaar ka mid ah idaacadaha maxalliga ee magaalada Muqdisho ayaa sababta ku sheegay inay weli caqabad ka jiraan safarada lagu aadayo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose sidoo kale waxa uu sheegay in xayiraadda dowladda Soomaaliya ay saartay Kismaayo ay saameysay dhammaanba mas'uuliyiinta iyo xubnihii ka qayb gali lahaa munaasabadaasi ma shaacan xildhibaanku xilliga rasmiga ah ee la qabanaya xafladda caleemasaarka balse waxa uu carabka ku dhuftay in xafladda caleemasaarku aanay ka badan doonin muddo toddobaada waa markii labaad ee dib loo dhigay xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe arrintaasi oo lala xiriirinayo khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka iyo Jubbaland oo sii xoogaystay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed dheer oo soo saartay waxa ay ku sheegtay habraac doorasho iyo guddi farsamo oo loo dejin doono qorshaha lagu soo dhisayo xubnaha baarlamaanka labaad iyo doorashada madaxweynaha ee maamulka Jubbaland ee sanadkani habraaca doorashada ay wasaaraddu ay doonayso in laga qabto Jubbaland ayaa lagu soo koobay 26 qodob waxaana qodobadaasi ugu muhiimsanaa in wasaaradda arrimaha gudaha ay ku dhawaaqdo natiijada rasmiga ah ee doorashada maamulka Jubbaland iyadoo ay goobjoog ka noqonayaan goobjoogayaal caalami ah iyo in xubnaha xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka Jubbaland loo madax banaaneeyo soo xulidda odayaasha dhaqanka beelaha ay matalaan sidoo kale habraaca dib u heshiisiinta ayaa waxay qoraalkeeda ku sheegtay wasaaraddu inay guddi u xil saartay wargelinta iyo xiriirinta beelaha soo ururinta iyo isku keenida ergooyinka ka qaybgalaya shirweynaha dib u heshiisiinta ee Jubbaland iyadoo loo daadihin doono shirkaasi qaabka ugu habboon ee xal looga gaari karo khilaafka bulsho iyo kan siyaasadeed ee ka dhex jira beelaha wadadaga Jubbaland ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ay wasaaraddu soo saartay waxaase isla markiiba jawaab degdeg ah ka bixiyay kana soo horjeestay habraaca doorashooyinka baarlamaanka ee Jubbaland ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah maamulka Jubbaland wasiirka warfaafinta ee Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh ayaa sharci darro ku tilmaamay warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya wasiirka ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay in maalin walba ay ka lulato maamul goboleedyada waxaanu intaasi raaciyay inay dhawaan qabanayaan xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horeysay ka hadlay waxa ay yihiin koox ay aasaastay madaxtooyada Soomaaliya oo loo bixiyay magaca xoogagga wadaniyiinta Soomaaliyeed hadalhaynta kooxdan ayaa maalmihii la soo dhaafay si weyn loo dareemayay kadib markii la shaaciyay inay wadaan abaabulka barnaamij looga soo horjeedo madaxdii hore ee dalka sidoo kalena lagu taageeriyo madaxtooyada Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isweydiiyay waxa ay yihiin iyo cidda ay ka tirsan yihiin xoogagga wadaniyiinta Soomaaliyeed waxaana uu tilmaamay inuu dalku leeyahay 4 ciidan oo la wada yaqaan xoogagga wadaniyiinta ayaa wakiila ku leh degmooyinka gobolka Banaadir waxaana kooxdan aasaasay fiila Soomaaliya waxaana lagu tilmaamay guul wadayaal iyagu ka qayb qaata barnaamijyada iyo xafladaha dowladda ee lagu taageerayo fiila Soomaaliya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ruqsadii duulimaadka ay dalka kala laabatay shirkadda duulimaadyada ee Juba Airways oo lagu eedeeyay in shatigeeda ay ku duuleysay diyaaradii Sabtidii ka degtay magaalada Kismaayo ila wareedyo ka tirsan hay'adda duulista hawada ayaa xaqiijiyay jiritaanka warkani sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo uu ka mid yahay xildhibaan Xasan Macalin ayaa ku soo daawacay bartiisa Facebook warkani diyaaraddan oo nooceedu ahaa Fokker 50 kana diiwaan gashanay dalka Kenya ayaa sida la sheegay ku duuleysay shati ay leedahay shirkadda Juba Airways oo ka mid ah shirkadaha duulimaadyada ka sameeya dalka Soomaaliya diyaaraddaasi ayaa jabisay xayiraadii dowladda federaalka ay ku soo rogtay bishii hore magaalada Kismaayo taasi oo ahayd in diyaaradda tagaysa ama ka duuleysa magaaladaasi ay waajib ku tahay
inay soo marto magaalada Muqdisho iyo sidoo kale amar kale oo ahaa in 24 saacadood ka hor diyaaradaasi soo gudbiso codsigeeda ku aadan duulimaadyada magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Arintani ayaa imanaysa iyada oo sidoo kale dowladda Soomaaliya ay hay'adda duulimaadyada rayidka ay qaramada midoobay u gudbisay dacwad ka dhan ah dowladda Kenya kadib markii diyaarad ka soo duushay magaalada Nairobi ay Sabtidii ka degtay magaalada Kismaayo. Dowladda ayaa waraaq u qortay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan duulimaadyada rayidka iyada oo ku eedeysay dowladda Kenya inay ku xadgudubtay sharciga caalamiga ah ee duulista hawada. daawadayaal intaasi waxaa nagaga dhan wararkii Warshiil TV tan iyo intaynu ku kulmi doono warkan xiga waxaan idinkaga tagaynaa